بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadka meel walba joogtiin caafimaad waa raadin rajayna. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc yar oo ku saabsan faa'iidada ay leedahay in ilmaha la sheekaysto. ilmaheena inaan la sheekaysano faa'iido weyn ku jirto. ma ahan xiriirka waalidka iyo ilmaha ka dhaxeeya kaliya inay noqoto wax ma soo baratay, wax ma cuntay, waxa ku dira ma qabatay, yani أوامر للسيناي أوامر للسكقادنايو. يعني لازم إني جرتو وقت لوضع شيء سنايا أما مالين لها يعني مالين تصعته إني يكون جرتو وضع شيء كيسي إيجا دحمراي يعني وضع شيء كيسي إنه حابور كروالد كسبته قف كمركز تلو بهني هاي للجوجو أصل راعيو والد كواي مركا وحديه لها يعني المها هلو شيء يعني هلو شيء ما هلا شيء كيستو يعني رأي جودنا هلا دقيستو waxay sheegayaan hala dhageysto waxna haloo sheego ama hala weydiiyo midaas faa'iidada ugu weyn loo keenaa waxay tahay xataa hadhow toole markii oo meelaha ugu culus ay marayaan teenage-ka ay marayaan ama ay soo qaangaarayaan ee ugu hal adeeg badan yihiin waxa ku sahlanaanay inaad la xiriirtid, waxa ku sahlanaanay inaad ogaatid waxa ka dhex socda noloshooda, waxa ku noqonayaan ilmo ku furan ama diyaar u ah inay wax ka maqlaan ama ay wax ka dhageystaan ama ay wax ku sheegaan. taas marka waxay u baahan tahay abuur in la soo abuuro xiriirkaas inta la yaryahay laakiin hadii lagu soo wada qaato kaliya in amar lisa siiyo kan ma yeeshay wax soo akhris kan ma sameysay way yara adkaanaysaa xataa hadaa u baxna dhanka abayaasha amal yani in abaye oo markaas oo noqdo in laga cabsanayo oo ama amarka ugu dambeeyo asaga leeyahay ama oo guriga u joogo in amar la kala qaato bisle يعني إن لجو بدل بوسكاس إن جبر أما ويل وحي أحاطبه المها لا اسكو مدوها مرك إنه أجوجن إن أوصل أجوجن أوامر كلية أباهنا لين عيسى أو كلا شيكستو هو إذا نعيد كلا شيكستو مركو يري هنا مرة والبعنق جواك أخلي بدنته لين عياد هذه قربت إيقابك هذه قربت حتى وشيء أما ود عدني أما وشرحه هلك أسجن عليه سيد إنه كوشة يقوم حصو أركي مرك فإذا وين كجرتين إن مهلا لا شيكست إن لو شيكي ما إن لا sheekaysto waxa dhalanaysa yani xiriir fiican oo qurxan waxaana fududaanaysa isfahamkiina dambe markii la weynaado yani uu ku soo taba guriga soo aada uu soo jeclaana uu soo xiisa wuxuu og yahay meel warkiisana laga dhageysanayo war cusubna loo sheegayo inuu socdo aad u mahadsantihiin intaas maanta rabaa inaan idin la wadaago. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.